salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii ciyaaraha oo maanta aan ku falanqayn doonno cashirkii lama iloobaanka ahaa ee arsenaal ay u dhigtay kooxda MK Dons iyo Saliba oo noqday silacdiid maxamed ilnini oo amaah kaga soo laabtay arsenaalna waxa uu cadeeyay in lagu halayn karo dhaqaajinta dhiiga qadka dhexe farjal fandag oo digniin adag u diray ciyaartooyda Liverpool maxay noqonaysaa barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaa iyo waxaan qaabili doonaa maalin kale oo dunida kubadda cagta ay qaabilayso arinta lama filaanka ah ee ka dhax aloolsan Lionel Andres Leo Messi iyo kooxda Barcelona jamaahiirtu waa iska soo baxeen halyayadana qayladooda ayaa baxaysa qodobada iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaadna ku daawan doontaa barnaamijkeena ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel qabagelinta barnaamijkeena waa Doxan Enterprise ma tahay arday doonaya in uu wax ka barto jaamacadaha ugu sareeya dalka Turkiga haddii jawaabtaadu ay tahay haa Doxan Enterprise waxay kugu bishaaraynaysaa in ay ku hayso viisaha dalkugalka dalka Turkiga oo aad u jaban iyo waliba deeq waxbarasho oo aad ka heli doonto jaamacadaha ugu sareeya dalka Turkiga oo gaarsiisan ilaa iyo 80% wixii faahfaahin oo intaasi dheeri ahna kala xiriir telefoonada iyo lambarada shaashada kaga muuqda Doxan Enterprise umaciinaha ardayda taagta daran aan ku bilaabano barnaamijkeena iyadoo Arsenal ay ka dhax guuxayso in sabdida soo aadan ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool koobka Community Shield ayay xalay istaadiyaha MK ay kula ciyaartay kooxda MK Dons kulan saaxiibtinimo oo qayb ka ahaa kulamada ay isagu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee ku soo wajahan 24 maalin kadib markii ay ku guuleysatay FA Cup-ka ayay waxay ciyaartay kulankoodii ugu horeeyay ee saaxiibtinimo daqiiqadii afaraad marka ay sii cagacagaynaysay ciyaartana Arsenal waxay heshay furaha goolka koobaad waxaana u dhaliyay Maxamed Elneny oo ka faa'iideystay qalad uu galay goolhayaha MK Dons se la entregaba abierto por la derecha Lee Nichols un regalito así viene el remate gol Arsenal, Elneny, error garrafal de Nichols y de primera nomás Barak. Y sí, y mira que le cayó. Arsenal ayaana lahayd libinta ugu badan ee ciyaartii ka dhacaysay istaadiyaha MK oo maxaa yeelay difaacooda waxa ka soo muuqday William Saliba oo loo asteeyayba in uu yahay silacdiidka kooxda Arsenal waxaana uu soo bandhigay kubadda facasho oo dhan kasteetaba ay la dhaceen jamaahiirta Gunners waana la awoodi waayay in si sahlan lagu hoos dhaafo goolka labaadna waxa uu ka yimidba Nketiah oo siiyay gacanta sare ee ciyaarta kooxda ka dhisan waqooyiga London. A few years ago now, Mikel Arteta played in the game. The dugout together today. Here is Saka, Nketiah with a shot. Oh, that's brilliantly done by the youngster. Wonderful break once more. And you do sense that the young players in particular will want to try and fill their boots here. And that's a slick finish from a young man who burst onto the scene a couple of years ago. He discovered his form after a spell at Leeds and was a very, very good contributor to Arsenal. MK Dons oo dhankeeda xariiftamaysay ayaa daqiiqadii 31 waxa ay heshayba goolkeedii ugu horeysay ka gadal markii shabaqadiisa uu ku toosiyay loob ay soo tuurteen Rob Holding sidaasi ayayna natiijada ciyaarta ku noqotay 2 gool iyo gool. Spin check the court for a second. MK Dons are coming forward and the spin was from the substitute Callum. Brilliant. Oh, that's fantastic. How about that? Well, Holding. Well, I think that's just the finish they was looking for from that free kick earlier on. Just a little touch like that. Yeah, he's diving as well, so it's made it look even better.
It's not a great ball in, is it? It's not. laakiin Arsenal waxaaba buuggeeda taariikhda isku qoray xidig kale oo cajiib ah kaasi oo noqonaya Magnus waxaana uu ahaa mid uu ka yimid goolkii saddexaad ee Arsenal daqiiqadii 60aad waxaana madax uu ku garbaashay koorna ay soo tuuratay Gunners Arsenaleyska had iyo jeer waxay ciyaarayeen baroodi tigtaka ku salaysan geesiga ka dhex ifayna qadka dhexe waxuu noqonayay Maxamed Elneny oo amaah ugu maqnaa dibna uu u soo ceshtay macallin Mikel Arteta waxaana uu cadeeyay waqtigii maqnaanshaha ee Arsenal in uusan ku qasaarin oo maxaa yeelay barooni wanaagsan ayuu baray ciyaartooydii MK Dons goolka afraad ayaana yimid dabayaaqadkii ciyaartan ka gadal markii diilinta ganaaxa lagu dhex jillaafay da'yarka Arsenal ee Nelson Rigorasa loo dhigay isla isagii ayaana u sarifay gool waxaana uu u dhaliyay si degan oo la jeclaysto. Oh, sounds that much better. Arsenal winger steps up. Nelson to make it 4 sends the keeper the wrong way. Arsenal waxay gaadhay guul weyn oo 4 gool iyo gool ah marka la eegana ciyaartii ka dhacaysay istaadiyaha MK 5 gool ee laga dhaliyay dhamaanba waxa wada dhaliyay ciyaartooy Arsenal ah waxaana waqti xadirka kan iyo wixii ka dambeeya dareenkooda ay u soo weecin doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen Liverpool iyagoona u socda ku guuleysiga koob kale oo aad u weyn. difaaca reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa digniin adag u diray ciyaartooyda kooxda Reds ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub ee Premier League. kooxda uu hogaamiyo tababare Jurgen Klopp ayaa xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday waxa ay ku guuleysteen horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska 30 sano kadib iyagoo waliba farqi 18 dhibcood ka sareeyay kooxdii ku soo xigtay oo noqonaysayba Manchester City. waraysi uu bixiyay Virgil van Dijk ayay soo bandhigtay jariirada gool waxaana uu ku yiri waxaan u malaynayaa inaan u aragno xasiloonida inay tahay aqabad weyn waa tartan cusub oo dhamaanteen ah waxaan joogi doonaa meel qof waliba uu doonayo in uu noogu guuleysto in ka badan sidii aynu ahayn sanadkan waxaan hoos tagi doonaa cadaadis yar laakiin waa inaynu taasi aynu ku raaxaysanaa ayuu ku yiri waraysigiisa Virgil van Dijk waxaana xusid mudan in Liverpool habeenka Sabtida ee soo socota ay la ciyaari doonto Arsenal ciyaar ka dhici doonta istaadiyaha Wembley noqonaysana finaalka Community Shield maadaama labada kooxood ay kala hanteen Premier League iyo FA Cup-ka xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday. dunida sidoo kale waxa haysata dhacdadii udubka ahayd ee Barcelona iyo Lionel Messi ka dhax aloolsantay habeenkii xalay oo Messi ayaa ka codsaday kooxda ka dhisan gobolka Catalonia in si shuruud la'aan ah ay ku fasaxaan isla markaana kooxda uu doono si xur ah uu ugu biiro taasi badalkeeda laacibka reer Chile ee Arturo Vidal oo isagana tababare Koeman uu u sheegay in uusan qayb ka ahayn qorshihiisa xagayga soo aadan ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri marka shabeelka uu koorna u baxo kama dhigna in uu isdhiibay waa uu dagaalamaya. farintani ayaana ka turjumaysa xaaladda Barcelona ka dhax aloolsan waqti xadirka kan oo ahba mid iska qashay labarey ah. Lionel Messi waxaanan marnaba shaki laga keeni karin in uu ahaa mid kooxda ku hogaamiyay guulo waaweyn waayihiisa ciyaareed siiba marka loo fiiriyo Barcelona uu la qaaday 4 Champions League 10 koob oo horyaalka La Liga Spain iyo koobab kale oo fara badan haddii ay ahaan lahayd koobabka maxalliga ah si lamida Super Cup iyo UEFA Super Cup. sidaasi oo ay tahay hadda waxa la taagan yahay waqtigiisii kala guurka waana ninka u dhaliyay Barcelona in ka badan 630 gool. Puyol ayaa ka soo hadlay arrinta waqti xaadirka kan ka dhax oloolsan Messi iyo Barcelona waxaana uu sheegay in dhankasteetaba uu garab taagan yahay hogaamiyaha kooxda. fariintan uu ku soo bandhigay buggiisa Twitterka Puyol waxa uu ku yiri ixtiraam iyo qadarin Leo waan ku garab taagan nahay saaxiib
weeraryahanka Barcelona ee Luis Suarez oo isna si lama filaan ah ay u daftay seefta Ronald Koeman ayaa isagana dhankiisa wuxuu cadeeyayba sida uu ugu faraxsan yahay bixitaanka Lionel Messi oo waxa uu soo raaciyay sawir muujinayay sacab taasi oo ka dhigan in uu ku riyaaqsan yahay in saaxiibkiis isna uu ka tago kooxda Barcelona. sheekada Messi intaasi kuma eka oo jamaahirta kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa gabi ahaanba waxa ay isugu soo baxeen magaalada ay ka dhisan tahay kooxdan iyo afafka hore ee istaadiyaha Camp Nou, waxaana ay muujiyeen in taageerid iyo weliba garab istaag ay la taagan yihiin laacibka reer Argentina ee Lionel Andres Leo Messi. Barcelona waxay ku jirtaa xaalad qasan oo aan la garanayn waxa ay ku dambayn doonto. go'aankase waxa la sugaya baryaha soo socda. Messi ayaana dalbaday in si plaash ah lagu fasaxo iyadoona kooxda ay ku qasbayso in wax qadarin ah aysan u muujin doonin, taasi beddelkeedana ay u baahan yihiin in ay ku helaan lacago aad u badan. halyayada ka soo hadlay kala tagitaanka Barcelona iyo Lionel Messi waxa qayb ka halyaygii hore ee xulka qaranka Portugal iyo kooxda Barcelona Luis Figo oo maray wadada haatan uu ku taagan yahay laacibka reer Argentina ayaa isaga oo ka falcelinaya go'aanka Messi Twitterka wuxuu ku soo qoray wow, waxaana uu soo raaciyay arrin kale oo taariikhi ah. inkastoo aan la ogeyn waxa uu ka damacsan yahay arrin kale, haddana waxa la rumaysan yahay in uu u jeedo markii uu ka tagayay Barcelona kuna biirayay Real Madrid 20 sano ka hor. sheekooyinka Messi intaasi kuma eka oo waqti xadirka kan waxa loo saadaalinayaa ka tagistiisa gobolka Catalonia iyo magaalada Barcelona, waxaana durbaba xaaladiisa qoondaynaya kooxaha kala ah Manchester United, Paris Saint-Germain oo doonaya in ay helaan saxiixa kabtankii Barcelona wuxuu u gudbiyay warqad cadaynaysa in uu doonayaba inuu isaga tago kooxda. PSG iyo United ayaana loo aqoonsaday in ay yihiin laba naadi oo heshiis la gaari kara mucjisadii reer Argentina. Lionel Messi ayaa sidoo kale doonaya in uu ku biiro Manchester City haddii ay soo idlaato dhacdada waqti xadirka kan isaga iyo Barcelona ka dhex aloolsan. xidiga reer Argentina ayaana la soo warinaya in durba si weyn loo hadalhayo in uu u soo weecan karo xagga iyo Premier League oo maxaa yeelay isaga iyo Pep Guardiola waa laba isku baahan, waxaana ay u baahan yihiin ku guuleysiga Champions League oo tan iyo markii ay kala tageen ay awoodi waayeen in ay ku wada guuleystaan. Juventus iyo Inter Milano oo horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa sidoo kale aad u qiimeynaya xaaladda mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi, isaga ayaana haysta waqti xadirka kan suuqyada qaaradda Yurub iyo caalamka oo dhan. intaasi ayaan ku gabagabeynaynaa barnaamijkii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida sida iyo nabad galyo.